بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. mid ka mid ah taalooyinka ugu caansan caalamka ahna mid ka mid ah meelaha ugu soo jiidashada badan dalxiisayaasha. Muuqaalkan ayaan kaga warrami doonaa warbixin ku saabsan Taj Mahal. Taj Mahal waa dhisme aad u weyn lana qurux iyo soo jiidasho gaar ah. Dhismaha quruxda badan ayaa wuxuu dhacaa waddanka Hindiya, gobolka Uttar Pradesh, magaalada Agra. Dhismahani ayaa wuxuu ku fadhiyaa qiyaastii 170,000 oo mitir square aaga magaalada. Haddaba Taj Mahal waa mid ka mid ah tusaalooyinka ugu muhiimsan ee quruxda dhismaha boqortooyada muslimka ahayd ee Mongoolka ee ka talin jirtay dhulka hadda Hindiya ku taalo. Taj Mahal waxaa dhisay boqorkii Mongoolka ee la odhan jiray Shah Jahan, kaasi oo xukunka hayay intii u dhaxaysay 1628 miilaadi ilaa 1658 miilaadi, isagoo xusaya aaskiisii dhimatay ee Mumtaz Mahal oo ahayd amiirad muslimad ah oo reer Faris ah. Guurkeeda ka horna loo yaqaanay Arjuman, gabadhaas oo aad u jeclaa. Haddaba boqor Shah Jahan waxa uu la kulmay iyadoo 14 jir ah, wuu jeclaaday oo uu guursaday sanadkii 1612 miilaadi. Inkastoo ay ahayd aaskiisii saddexaad, haddana san soo tilmaanay aad ayuu u jeclaa oo ka doorbidi jiray dumarkiisa kale, sababtuna ay ahayd awoodda qofnimadeeda, xishoodkeeda iyo quruxdeeda. Waxay u raaci jirtay dhammaan safaradiisa. Sanadkii 1631 miilaadi ayaa Mumtaz Mahal waxay ku dhimatay ilmaheedii 14aad magaalada Burhanpur. Boqorkiina aad ayuu uga murugooday geerida xaaskiisa. Wuxuu ka go'ay dadka kale in ka badan 1 sano si uu ugu baroordiiqo geerideeda. Kadib waxa uu bilaabay dhismaha Taj Mahal sanadkii 1632 miilaadi. Wuxuu soo gabagaboobay sanadkii 1648 miilaadi. Isagana markuu dhintay waa lagu garab aasay. Haddaba waxa uu doortay meel ku habboon taaladaasi. Dabcan boqorka lafahantiisa ayaa ka qayb qaatay maadaama uu xiisayn jiray dhismaha, iyadoo ay dhanka kale u dheereed inuu si cad u daneynayay dhammaystiranka dhismahaasi. Dhismahani ayaa waxaa ka qayb qaatay farsamayaqaano, nashqadeeyayaal iyo farshaxanistayaal badan, lagana keenay dhammaan boqortooyadii Mongoolka, bartamaha Aasiya, Faris iyo boqortooyooyinkii kale ee muslimiinta. Haddaba dadkii ka qayb qaatay dhismahan ayaa ka badnaa 20,000 oo qof. Nashqadeeyaashii ugu muhiimsanaa ayaa waxaa ka mid ahaa Isa Fan Afandi iyo Professor Ahmed oo reer Faris ahaa. Waxaa laga dhisay Agra, dhererkeeduna wuxuu gaarayaa ilaa 16 kiiloomitir. Waxaa ka mid ah dhismahan oo laga sameeyay guri marti ah, beero, masaajid iyo albaabo badan. Wuxuu sidoo kale ka kooban yahay dhismaha 4 qubadood oo yaryar iyo 4 minaaradood oo mid walba gees ku yaallo. Ugu dambeyn waxaa jira walaalayaal aragtiyo kala duwan oo aan ahayn mid aan soo tilmaamnay sababta dhabta ah ee loo dhisay Taj Mahal. Dhanka kale magaca Taj Mahal ayaa lafahantiisa aragtiyo kala duwan laga sheegay sababta loogu bixiyay, balse qaar ayaa tilmaamay inuu ka yimiday magaca xaaskii boqorka oo ahayd Mumtaz Mahal oo iyada loogu magac daray. Intaas ayaynu ku joojinaynaa muuqaalkan. Waxaan rajaynayaa inaad wuxuun ka faa'iidaysteen. haddii ay tahay markii kugu horeysay nagu soo biir oo subscribe muuqaalkana like saar sina sheekay.